baarlamaanka madaxweynaha galmudug gudoomiye ku-xigeenka faadumo goonjaaqda waa u mahadcelinaa qofka ugu horeeya oo sheegay gabadha qiimaha iyo xaalaha loogu mahadcelinaa dhammaan sida ay ugu horeeyaan markashaadka kala dhan oo fadhiyaan isugu jiraan wasiirada galmudug shacabka galmudug waxaan kalo aad ugu mahadcelinaha haweenka galmudug ee halkaa fadhiya inta cawdadeen taariikh weyn waaye wax aad nooga wada fursinaayo waaye galmudugna taariikhay soo marto maalinba meelay maraysa alxamdulilah maanta meeshaanay taagan agost 14 2006 aa horta galmudug la aasaasay qofka daari sheegana masaqaafadaraa galmudug madacwaa la aasaasay galmudug markaasaa la aasaasay waxa waaye 14 sano ka hor 9 sano ka hor marka galmudug la dhiso galmudugti kale la dhiso habeen waqti la soo joogay oo heerka aragtida soo martay waxaa ku xigtay habeen aan joogno galowa tow oo aan u malaynayo inay ahayd february 2012 taariikhda ay soo martay habeenkaas waxaa markhaati iga ah jenaraal senatarka in heshiiska garowa tow ugu daro galmudug inay jirto wixii ay qaadatay habeenkaas waa loo soo joogo waxaa kaloo loo soo joogay 2015 ballaarinta sida uu dastuurka dhahaayo garowa tow ay dhahaysa galmudug waa jirtaa waana in la ballaariyaa oo isugu keenaa dadka ay ka dhexayso ballaarintiina markaasay dhacdo oo dadka la isugu keenay caawana waxaan u joognaa halkan maamulka cusub noo keenay in la sameeyo dekada hobyo dekada hobyona galmudug kaliya ma tarayseen waxay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaale ee soomaaliya ee ka mid tahay galmudug kaliya ummadda soomaaliyeed ay tahay haddii la dhiso maxaa yeele howlaha dhibaatada oo haysa iyo dibdhaca haysa ay ka qayb qaadanaya in la fududeeyo oo horey loo dhigo marka reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaa ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo ka dhisaan reer galmudug wax kasta oo horumara oo waddankan ummadda soomaaliyeed loo sameynayo meel kastoo laga sameynayo inay ka qayb qaataan saasay ku imaanaysaa soomaalinimada aad intaa tahada inuu sugaraad facebook kusoo dhigay ayaa dhawey uu yidhi inta aan isku mashquulsannahay ma fahmi doono kuwa nagu mashquulsan macnaha ma fahmayna dhibaatada ay nagu haayaan kuwa nagu mashquulsan oona baabi'inayo maxaa yeelay hadalkaas hadal weynu ahaa isku mashquulsanaanta intaan iska dhaafno aannaga isu muuqano waxna qabsano haddii ilaaha yidhaaho dekada keliya maahay kaabayaasha qaarjiro oo jidadkeediya gabacdada sidii loo sameyn lahaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii laba qofoo aad u jeclahay oo ah professor shirwa iyo cumar salaad dadkii ay hogaaminayeen waddada ay ka dhiseen oo hobyo ka bixayso siinayaa maamulka galmudug ayagaa hadda mas-uuliyad lehaaya haddaan inaad usii gudubtiin qaranka inaad hogaamisiin waxaad galmudug ka samaysiiya ku xirnaanaysaa galmudug waxaad ka samaysiiya ku xirnaanaysaa marka hadda mas-uuliyadaan haysana hadday olba waa haysana waxaa uga duwantihiin dhexdaa u xirateen waxaa dhahdeen galmudugaan dhisaynaa dekadeedaan dhisaynaa annagana waa idinku danufeelaynaa namarkaca laakiin haddaasay seexatiin annagana waa seexanaynaa
الديوان السابق الديوان الفقهي الديوان المدرسة الصوتية يمكن ربنا ما يشافي بالمدن توصلنا واجبنا إذا توصلنا أنا توصلنا بيانا علينا وحنا رجعنا أن إلهي يكون نور الله الله أقبل قوي في دراسين يتقبل اللي نوصل جيلنا هذا ماشي صوت ثاني وحنا اللون كلماتي وحاول دوشة وعيقين ذلك مثل قلت على كل الشارع عربي وحيان دول تعمل قضين وأفعل السيب حتى الأسكين حتى لو الله صلى كل الشارع إنك مارن ما كمل أدخل إلى هدول الحق كمنا وأعطل إلى الإنسان وقف كأنه مدورتان عندك بين الوصول قف أيام جمال كلمة أنت كشف لنا إلى الصومالي